يلا وحمل وقد رجاله تبقى كنت انا تحترم يا سعد waxaa xeer iyo caado u ah ama dhaqanba u ah guddiga cadaaladda marka ay baahi garsoorayaal timaado in imtixaan guddiga cadaaladdu qaado kadibna tababar la bixiyo tababarkaa ciddii dhammaysatay imtixaankii soo baastay in laga howlgeliyo meelaha baahida garsoorku ay ka jirto ee wadanka maxkamadaha kala duwan ee wadanka qaabka howlgelintuna wuxuu noqonayaa sida maanta oo kale in bakhtiyaa nasiib marka la xadido goobaha baahiyu ka jiraan in waraaqayra lagu qoro magacyadooda goobaha maxkamadaha baahidu ka jirto garsoorka la howlgeliyana qof walba laga nasiibkaaga qaado taa waxaa ka horeysa in la dhaariyo maadaamay mas-uuliyiin qaran yihiin oo garsoorkii ka howlgelayo haddee waad idhaarina kitaabka gacanta saara زمن يلا وحمل وقد رجاله تبقى كنت انا تحترم waxaa igu wallaahiya oo igu bilaahiya inaan daacad u noqonayo dadka somalilan diinta islaamka dadweynaha somalilan iyo shacbiga somalilan ku dhaqaayo cadaalad iyo sinaan anigoo raacaya shareecada islaamka iyo qawaaninta waddanku leeyahay وحتى تقول هاي وحيثنك ومأوي وجد تقول هذه يؤنس كل الدعوة فردها ابني كبير حتى تقول هاي وحيثنك ومأوي وجد تقول هذه يؤنس كل الدعوة فردها